waxaanu xeerlaaninta guud iyo hay'adda dambibaarista ka sugaynaa in ay qofka ku hanjabay isku dayga dilka ah inay soo qabtaan maxkamaddana keenaan runtii waxaan la wada soconay ama aynu ognahay ka wada dheeragsanahay in had iyo jeer dadka la soo qabto ama la yiraahdo hebel baa paragraph Facebook nin mas'uul wax kaga sheegay oo maxkamad lagu geeyo oo la xidho tani maanta way ka duwan tahay waxa weeyaan afayeenkii guud ee xisbiga ayaa handadaad iyo hanjabaad iyo dil loogu baaqay waxa maanta sharciga Soomaaliland iyo hay'adaha amniga hor yaala hal xidhaalo weyn runtii kaasoo ah si ay guri ay ka qabanayeen ay soo qaban jireen dadka ay ahaa paragrafad mas'uul wax kaga sheegtay tuka weyn baa taala waxa aanu eegaynaa oo aanu sugaynaa sida ay uga falceliyaan waxaanu rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan hawsha soo qabtaan dhammaan hay'adaha ay khusayso waxaan halkan cadeynaynaa ama aan baaq u direynaa taliyaha ciidanka booliiska haddii saacadan hadlana wixii ka dambeeya xariijir soo gaadho ammaankiisana oo halis galo waxa mas'uuliyadda leh hay'adaha amniga ee qaranka waan ugu baaqaynaa marka waan ogeysiinaynaa wax la qarinayo runtii ma aha halkan waxa ku cadeynayaa ku hayaayeen waraaqihii aan u gudbinay hay'adaha amniga dhamaantood waxa kale oo aan ku hayaa tii loogu soo hanjabay oo la soo daabacay oo lambarkii ku yaalo qofkii ka soo hadlay ku yaalo waxaan naga ballan qaadinay hawsha ay soo dhameyn doonaan haddii la yiraahdo waxa xiraalo weyn oo maanta soo hor yaala hay'adaha amniga waxaan runtii leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan hawsha wanaagsan soo joogto